barakaatu. Bacda salaan waxaan mahad gaar u celinayaa marka hore cid kasta oo ka soo qayb qaadatay hawshan manaafacaadka leh ee bulshada oo dhan khusaysa, gaar ahaan guddigii hawshan gacanta ku haysay oo runtii habeen iyo maalinba halgan ugu jiray sidii uu ku hirgeli lahaa mashruuca manaafacaadka leh. Anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Barra Construction Company ahna injineerka, waxaan ka qayb qaatay oo aan sameeyey nashqadda garoonka aniga iyo tiimkaygu. Runtii wax aad loogu farxay ay ahayd markii ay guddidu noo soo sheegeen, sababtoo ah wax la qabto waxa ugu wanaagsan wax bulshadu ay wada shirgareynayso oo ay ka faa'iidaysanayso intaas oo kun oo qof ay ku badbaadi karaan. Waxaan markaa suurtageliyey oo aan ka fikiray in aan kulmiyo baahida muhiimka ah ee aynu u baahanahay iyo haddii lagu roon yahay dhaqaalaheenna iyo waddankeenu maanta xaaladdu ku sugan yahay. Marka runtii qaybihii ugu muhiimsanayd oo dhan waa wada qabsanay. Garoonka cabirkiisu wuxuu ka kooban yahay 250 mitir iyo 180 mitir. Mitir square ahaana wuxuu noqonayaa 6,000 oo mitir square. Haddii markaa la isiraahdo sidii caalamka ama stadium qaabku ahaa loo dhiso, runtii wada dareemi kartaan ama waad aragteen stadiumyada caalamka sida loo dhiso. Waxay ku xidhan tahay dhaqaalaha iyo awoodda uu maaragtay qofka howlgelinaya ama maalgelinaya marba budgetkiisu intuu yahay ayaa lagu fadhiisan karaa. Innagu markaa waxaynu suurtagelinaynay si aanay dareem u noqon oo waxaan u noqon wax khiyaal ah in aanu suurtagelino annagoo baahidii iyo quruxdii ka faa'iidaysanayna isla markaana wax xaqiiqada u dhow aynu samayno, quruxdii iyo baahidiina ay ku jiraan. sidoo kalena ay dhisi karaan shaqaalaheenu oo shaqaalaha waddanka jooga ay dhisi karaan oo inaan u baahan inaan dad dibeed aynu doonano. Marka baahiyaha asaasiga ah ee garoonka uu yeelanayo runtii waa garoon floor oo keliya hadda 6 mitir ayuu sare u kacayaa iyadoo ku xidhan marba baahida looga baahan yahay in structure-kiisa aynu kor u qaadno, maadaama aynaan awoodin in aynu dabaq ka dhigno oo ama laba qaybood isa saaran aan ka dhigno. qaybta lagu ciyaarayo marka laga yimaado qaybaha kale ee ku wareegsan ee tarbuunka ay fadhiisanayaan, waxaan ugu talagalay inuu hal floor oo dheer noqdo, isla markaana 3 mitir ama 2 mitir iyo barhka hoose waxba kama dhismi karaan oo waxba looma adeegsan karo, sababtoo ah waa meeshii uu ka bilaabmay oo catabad ayaa saa u kacaysa. sidaa darteed 6 mitir waxaan uga dhignay in 12 mitir oo balaca oo garoonka oo dhan ku wareegsan inaan ka faa'iidaysano oo uga faa'iidaysano baahiyaha soo socda. Number 1 inaan u samayno 2 intiri oo ay ka galaan labada tiim oo aanay markay tiimku soo galaan garoonka aanay toos garoonka u gelin, laakiin ay galaan qolka nasashada iyo suuriyadooda, isla markaana halkaa ay ka heli karaan baahiyahoodii asaasiga ahaa sida dressing area-dii iyo washington. laba albaab ayay kasii geli karaan garoonka marka loo yeedho tiimkooga u yeedhaan ama qolada maamulka u yeedho ay ka geli karaan. qaybaha ay ka geli karaan dadweynuhu waxay noqonayaan ilaa 10 qaybood oo tirtirooyinka dhexdooda ka furan oo kasoo bixi karta aadna u waasac u ah. sidoo kale waxaa jira 4 albaab oo dambe oo emergency case ah, mustaqbalka marka uu wada dhismana haddii lacala wax dhacaan lagu badbaadi karo. waxaa intaasi dheer hall meeting iyo qaybihii maamulka garoonka iyo qaybihii miitinada lagu gelayay ama dowladda ama maamulka cid lagu gelaysay. cafeteriooyin baa ku jira, sidoo kale qaybo VIP baa ku jiri doona oo la fadhiista ama madaxdu marka ay soo booqato ay ka daawato. waxaanu soo koobaynay runtii inaanu wax dadku ay ku farxaan oo dhalinyarta u noqon kara waxay ku ilaawi karaan taariikhka, inaanu qaybo muhiima ku kordhino oo asaasiya annagoo mar walbana eegayna bajetka iyo sida ay noogu suurtagelayso. wax kastoo loo dhaqaaqana runtii waa lagu guulaystaa. annagu shirkad ahaan haddii aan nahay Barra Construction waxaan had iyo jeer priority-ga saarnaa waxyaabaha danta guud. qayb laxaadana waanu ka qaadan doonaa oo shaqadaasi inta ay dhammaanayso waanu garab taaganahay. dhammaan bulshadana saasaan ka rajeynayaa wax kastoo loo dhaqaaqna way dhammaanayaan haddii aynu dadaal iyo iskaashi samayno. gaar ahaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa tiimka guddiga ah ee dhalinyarada ah iyo wasiirada kasoo wada shaqeeyey. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.